السلام عليكم ورحمة الله سود هذا ويا وركنا مانتا وحكمنا جبهة فانو كوحها أدقى لما قومية محارضة ودقال بأن كل جري ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo maalmihii u dambeysay ee dagaal ba'an la galeen ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya oo waliba ay ku xaqiijiyeen guul wax ku ool oo waaweyn kuwaas oo ay ku qabsadeen gabi ahaan magaalooyin waaweyn oo ay ka farmarojiyeen ciidamada Itoobiya taas oo ku teedan xuduudka u dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan halkaas oo ah xuduud aad u dheer dhulkaas ay galbeed ee Itoobiya oo aad u weyn ay بريه قدام بيسي دجال بأن أو كسعودي يكلوا وريجين مقالوين يجوا استراتيجي جواه يبقى فانو ما أنت هذا هو سر رجال عليين وعاصمة أتصوى أيه بحبط كبلاوين أو وح أي فليين والرقاديات وين كواس أنهار لو قفلين أيه قولي عاصمة كوكراعي كان تلا وين قولي ردة نادر أو أنهار لو جوجين وكواس لو تهميو إن أي كقصدين عندما الدجال بان كل جلين قلبت إثيوبيا الدولة الفدرالية ولبا الحالة شيء قريهاني إني أي ولبا أي كويرين وطن كاس إثيوبيا حصية شيء عندما جبهة فانو أيام مركز كسي دمبيسا ميلا يقول عجيب أحسي قبصنايا أيوه ولبا لسي وريجي يهوب يساند ميليتري أو أد بحدوين taasna oo ka dhigantahay in ay waj cusub u yeelaso dagaalka faano iyo ciidamada Itoobiya federaalka sidoo kale waxaad maqli doontaa ninkii musabixi ee madaxweynaha Soomaaliland inuu dalab cajiib ah u dirsaday dawladda Itoobiya talon xiyaa dalabkiisa waxaad ku maqli doontaa qaybkeena u dambeeya wararka sidoo kale dhankan dawladda Soomaaliya ayaa dhankeeda waxay heshay hub aad iyo aad casri ah oo waliba ku u dambeeyay waliba ha u badnaadaan diyaarado ayadoo waliba aad u sitayeen soo aad u qalabeenaysa ciidamada cirka wararkeena u dambeeyay ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u faahfaahsan hadday tahay markii u horeysay channelka subscribe saar like saar kambalaalkana furo si aad u hesho wararkii u dambeeyay iyo update-ka u dambeeyay si aad u hesho waayahay jabhadda Fano oo dagaal baan kula jirtay ciidamada dalka Itoobiya ee federaalka ayaa markan dagaal ba'an ay la galeen oo ay gabi ahaanba ku soo guuleysteen dhammaanba galbeedkaas iyo xuduudda ay ka wadaagaan dawladda Itoobiya iyo Suudaan ay ku qabsadeen ayaa maanta hadana waxay u soo daateen oo ay bartamaha u soo galeen caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa waxa ay waliba ku harqayeen oo ay ku weerareen gantaalada ku waliba kuwada ridada dheer meelaha ay bartilmaameedsadeen waxa ka mid ah airportka magaalada caasimadda ee Addis Ababa waxa waliba la arkay ciidamo waliba ku labisan dreeska ciidamada federaalka oo ka tirsan ciidamada Fano oo wata gaariyaasha loo yaqaan Cabdibilaahi iyo Helix inay waliba gudaha bartamaha caasimadda inta ay ku daateen waliba xabad furay oo waliba dagaal ba'an halkaas ka fulinayay taasna waxay ka dhigan tahay nabadii iyo kala dambeyntii caasimadda in badan ay ku faanayso dawladda federaalka ee Itoobiya ay markan gacanta ka sii baxday dagaalkuna ay markan u sii xoogstay oo la isku sii dhaadhacayo gunta iyo gunaanadka waliba lagu soo wada biyashubanayo caasimadda ee dalkaas Itoobiya ee Addis Ababa halka ciidamada halka jabhadda kale ee ayagana dagaalada baan la soo gashay ciidamada federaalka ee TPLF ay ku hanjabeen markan wixii inta ka dambeeya in aysan gacmaha si laaba doonin oo aysan ku eka doonin warqadaha iyo codsiyada ay dirayaan ee markan ayaguna ay dagaal toos ah la gali doonaan ciidamada federaalka oo ay waliba ayaguna u xaqnal taagayaan qabsashada caasimadda waddankaasi ee Addis Ababa halka Fano ay ayaga goor heraba ay sii gashay caasimadda meelo badan oo aad u waaweyn ay hore u soo qabsatay markana ay u muuqato in ay ku hardimayaan TPLF iyo Fano waddankaas Itoobiya halka dawladda federaalkuna ay noqotay daciif hoosna u sii dhacayso waa taas oo sii doonaysa waliba badii Soomaaliya oo doonaysa in ay Soomaaliya dagaal la gasho wallahi warba u yaala waa tahay newska iyo update-ka u dambeeyay ee ka soo baxay dhankaas Itoobiya halkan ayaanu sikin u soo dhigi doonaa channelkana subscribe saarta like-tana saarta gambalaalkana furta si aad warka u dambeeya iyo update-yada u dambeeyay aad halkan kala heshaan oo aad kala socotaan waa tahay dhankaas iyo Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland ayaa markan dalab cajiib ah u dirsaday dhankaas Itoobiya asagoo ku dalbaday ama asagoo codsaday markaas asaga iyo dhammaan xubno badan oo kulmiyay xisbigiisa ka tirsan iyo ganacsato badan oo markaas asaga oo markaas u arkayo in ay maaragtay ay muhiim tahay in ay baasaboorka Itoobiya ay helaan in uu markaas ugu baaqay in ay dawladda Itoobiya ay siiso ama ay qaataan baasaboorka Itoobiya halka markii hore ay isticmaal jireen baasaboorka Djibouti kadib markii musabixi uu heshiiskii walahawgi iyo beenta uu la gaaray Abiy Ahmed uu ku siinay badda iyo dhulka kadibna ay Djibouti xarka ay kala furteen Djiboutina markaas ay baasaboorkii dib ay uga noqdeen
markan wuxuu arkayaa Musabixi in uu passport u doonto dhankaas iyo Addis Ababa oo markan waxa moodaaba Musabixi in uu janjeero ama uu markan dawladdii yareed ee Soomaaliland uu ku sheegay ictiraafka u raadinayay oo markaas uu sii hoos geenayo dhankaas iyo Addis Ababa sababtoo ah nin passportkiisa aad qaadatay oo markaas passportkiisa aad waxay ka dhigan tahay inuu asaga danihiisa iyo wixiisa u fulinayso aad markaas toos u hoostagayso ayay ka dhigan tahay marka Musabixi wuxuu muuqataa inta aan hoostagi lahaa aan Addis Ababa hoostago inuu taagan yahay sidaas ayay u caddahay dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa hore ula soo wareegtay diyaarado afar ah oo Itaaliya markaas ay ka soo gatay umadiiba ay 16 milyan oo dollarka Mareykanka ah haddase dawladda China ayaa waxa ay ka helayaan diyaarado waliba qaar maartay iyo hub kale oo qaarna ay deeqiin qaarna ay markaas ay maartay ay gadanayaan inkastoo waliba ay dawladda wali xaqiijin laakiin wararka soo baxaya adduun media ay waliba soo xaqiijisay waxa kamid ah in ay hub aad iyo aad u badan oo qaybo badan isku kala jira ay dawladda federaalka markaasi ay gacanta ku soo dhigtay oo markaas ay xamar waliba laga soo dejin doono wararkeena waa naga intaas wararka dambe iyo update-ka dambe iyo wax kasta oo markaas soo gudboonaadana halkan ayaad kala socon doontaan channelka subscribe iyo like-tana ha ka ilmaamina mahadsanidin